haddii ay tahay markii kuugu horreysay aad soo booqato Sunlight College, fadlan nagu soo biir, gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka u horreeya ee hela barnaamijyada iyo casharrada aanu soo gelinno halkan. Like saar fiidiyowga haddii uu ku cajabiyo ood hesho qiimihiisa, waadna ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Present Perfect Continuous. Markaa waxaa daba isweydiin mudan qaabkee loo isticmaalaa, muxuu qabtaa. Inta aynaan markaa gudagelin la soco ogowna waxa weeye waa tenniskii ugu dambeeyey dhacdadii joogtada ahayd. Joogtada maxay u kala baxaysay? 4 bay u kala baxaysay. haddaba aynu markaa kusii socono si aynu u ogaano. Halkan wuxuu ina yidhi what is the present perfect continuous tense? What is waa maxay the present perfect continuous tense? dhacdada la yidhaahdo present perfect continuous tense waa maxay? What is used for? maxaana loo isticmaalaa? halkan ayuu markaa inoogu qeexayaa. wuxuu ina yidhi present perfect continuous tense is used for. tenniskan waxaa loo isticmaalaa an action, ficil ayaa loo isticmaalaa, which began, kaas oo bilaabmay in the past, waqti tegay oo past ah, kaas oo bilaabmay and still continuous, welina soconaya. Okay, faahfaahinta ka dheer aan siiyo. tenniskan waxa weeye waa tennis ama waa dhacdadaas oo ah in ay bilaabantay waqti hore past ah oo tegay bay bilaabantay. Okay, welina way soconaysaa. tusaale, subaxnimadkii oo kale hawl bilowda, hawshii aad subaxnimadkii bilowda ayaad weli wadaa, dabeetana qof baa ku yimi ku yiri waryahay maxaad haysaa? warniyo hawshii aan saaka bilaabay ayaan weli hayaa. Okay, markaa tusaalayaasha ayaa si qurux badan ama wanaagsan inoo kala tusi doona, aynu u gallo iyagana. Affirmative form, qaabkii caadiga ahaa affirmative-ka ahaa. Okay, affirmative formkii muxuu ina leeyahay? qaabka caadiga ah qaacidadiisu waxa weeye waa subject plus have, has plus been plus verb plus ing plus object. qaacidadiisu maadaama saa tahay, halkan haddaba muxuu ina odhanayaa? tusaalaha koowaad wuxuu ina odhanayaa I have been waiting for you all day. I have been waiting, waxa aan sugayay for you, adiga ayaan ku sugayay all day, saaka oo dhan ayaan ku sugayay. markaa waxa uu la hadlayaa qofkii uu sugayay. Okay, maxaa markaa haddaba qaacidadiisu tahay tenniskan? Okay, half uu wataa oo wuxuu kala mid yahay present perfect buu kala mid yahay, isaguna waa present perfect continuous. markaa half uu wataa sax, oo kaasina uu watay. maxaa kusoo biiray? been. maxaa halkan yimi? ing. Okay, waaba intaa qaacida ahaan inta kusoo biirtay. ing-danna waxa ay ku cadaynaysaa ama ku sheegaysaa wuxuu inuu yahay wax hadda la qabanayo, lagu guda jiro, waayo subaxnimadkii uu soo bilaabay, welina waa kanta qabanaya. sax. beenna waxa weeye waa imika oo kale, waa booskii was bay ku jirtaa oo kale, waa bb, waa past participle-kii. Okay, aynu kusii soconno. tusaalaha xiga, we have been calling him for 2 hours. we have been, waxaanu hayn kuwo calling him for 2 hours, garaacayay amaba u yeedhiyey 2 saacadood. waa qof tusaale aad garaacayso oo kale, telefonka garaacayso oo kale, 2 saacadood ayaad garaacayso, kaaba qaban waayo hadduu doono. amaba waa qof u yeedhiso oo kale, call micnaha labaad leedahay baa waxa weeye u yeedhido, qof u yeedhiso ilaa iyo 2 saacadood oo kale. Okay, tusaalaha xiga, you have been abusing her since morning. you have been abusing her since morning, ilaa iyo saaka ayaad caayaysa. adeeg inanta muxuu yidhi? you adigu have been waxaad ahayd abusing, mid caaya, her iyada, since morning, ilaa iyo subaxnimadkii oo dhan baad caayaysa.
okay hadda sida adigu isbedel hadaba ku samee qaabka aad ugu sameynaysaa waxa weeye in aad bedeli karto subjectigii okay marka subjectiga bedeshid subjectigii ma half buu yeelanaya mise has half waxa leh I we iyo you iyo they he iyo she itna has bileen waa halkan ku qoran okay markaad adigu subjectigaaga la timaadid oo xaaladaad hadba ka hadlayso ku xiran waxaad raacinaysaa un qaacidadii tenniska aad markaa ka hadlaysaa u lahaa halkan markaa iminka ing baad raacinaysaa marka aad ka hadlaysid kan oo kale they have been watching the TV since evening they iyagu have been watching waxay daawanayeen the TV since evening TV-ga waxay daawanayeen ilaa iyo fiidkii welina way daawanayaan TV-ga mar hore ay bilaabeen welina wuu socdaa way daawanayaan ilaa iyo waxay daawanayeen fiidkii he has been working since 8 o'clock waxa uu shaqaynayay ilaa iyo 8 saac tusaale xiga she has been cooking since last night she has been cooking since last night halkan wuxuu yiri iyadu waxa ay karinaysay ilaa iyo xalay ay wax karinaysay waa mid cuntadii dabka saartay ama baan idhaahdo cashadii oo ilaa iyo xilligii kale la soo gaadhay tusaale xiga muxuu leeyahay it has been raining since Sunday it has been raining roob baa da'ayay since Sunday ilaa iyo xaddi roob baa nahayay waa roob bilaabmay waqti hore oo baastiya kaba soo qaad xaddi maxaa ka horeysay sabti waa roob sabtidii baa doona ku bilaabmay ilaa iyo xaddina uu haya dadna waa kan it has been raining since Sunday ilaa iyo xaddi roob baa nahayay waliba waxa laga yaabaa xataa isniintii maanta ku jiro kale ilaa iyo xaddi uu hayay roob okay qaabkaas waxa weeye waa qaabkii affirmative-ka ahaa qaabkii ahaa interrogative form-ka qaab su'aaleedka hadaba maxaa isbedel ku yimi baynu isweydiinaynaa isbedel waxa ku yimi okay halfti xagga hore soo martay okay idina adigu caadito sidii caadada ahaan jirtay marka qaabka interrogative-ka la yimaado bintin halkeedii bay iska taalaa marka muxuu yiri have I been waiting for you all day ma waxaan ku sugayay ilaa iyo maalintii oo dhan ilaa maanta miyaan ku sugayay okay half baad soo horeysiisay inta kale sidoodii bay u dhigantay sax half iyo xastaa marisa ayda halkay marka hore ka ahayd I have been waiting for you all day ayaad hadda ka oranaysa markaad su'aal qofkii weydiinayso have I been waiting for you all day ma ilaa iyo maalintii oo dhan ayaan ku sugayay okay marka have iyo has ma horeysiinaysaa wuxuu kala mid yahay present perfect uu kala mid yahay have we been calling him for 2 hours ma waxaanu garaacaynay 2 saacadood have you been abusing her since morning ma waxaad caayaysay ilaa iyo subaxnimadkii have they been watching the TV since evening ma waxay TV-ga daawanayeen ilaa iyo fiidkii has he been working since 8 o'clock ma ilaa iyo 8 saac ayuu shaqaynayay has it been raining since Sunday ma roob baa da'ayay ilaa iyo xaddii qaabka diidmada halkan waxaynu oranayaa qaacidadiis waxay noqonaysaa sida tan kor ku xusan subject plus have has plus not plus been plus verb plus ing plus object okay maxaa isbedel hadaba ku yimi qaabkii affirmative-ka hawsan noqon positive-ka oo kale ahaayo tooska ama caadiga ahaa I have been waiting for you all day Soomaalinkii hore kan hadaba maxay noqotay I have not been waiting for you all day I have not been ma aan ahayn mid waiting for you all day mid maanta oo dhan ku sugaya anigu ma ahayn maxaa ku soo biirtay kaliya not markaad qaabkii hore aad moogtay ka soo tusaale qaadato not buu guda geliyayba taxigta we have not been calling him for 2 hours anagu 2 saacadood maanu garaacin umanaanu yeelin okay you have not been abusing her since morning ma aad caayinin iyada ilaa iyo subaxnimadkii they have not been watching the TV since evening ilaa iyo fiidkii ma ay daawanin TV-ga he has not been working since 8 o'clock ma uu shaqaynayn ilaa iyo 8 saac she has not been cooking since last night ma ay wax karinaynin amaba qof wax karinaya may ahayn iyadu ilaa iyo xalayto
It has not been raining since Sunday. Ilaa iyo Axaddii roob ma uu da'aynin. Okay, halkan waxaynu soo galnay markaa short exam, imtixaankii gaabnaa amaba su-aalihii saddexda ahaa ayaan idin weydiin jiray, ayna tahay inaad ka soo jawaabto, waayo faa'iido ayay ku leedahay. Aan u guda galo markaa. Waxayna yidhi ta koowaad, we have been reading the lesson since morning. We have been reading, waxaanu akhriyayna the lesson, casharka, since morning, ilaa saaka waxaanu akhriyayna casharka. Change into negative, diidmo u bedel qaab diidma. Su-aasha xigta, has he been crying for 2 hours? Ma waxay ooyeysay 2 saacadood miyay ooyeysay? Change into affirmative, qaab caadiya u bedel. Okay, they have not been speaking since evening. May hadlaynin iyagu since evening, ilaa iyo fiidkii iyagu may hadlaynin. Change into interrogative, u bedel qaab su-aaleed. halkaa ayuu casharku inoogu joogayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.